galab wanaagsan saaxiibayaal waxaan barnaamijkeena galabta waraysi kula yeelan doonaa aqoon-yahan reer Puntland oo ka soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga ee kuwa gaarka loo leeyahay waxaanan ka waraysan doonaa xaaladihii guud ee Puntland iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee wadanka Engineer Liban kusoo dhawow galabta waraysigan halkan aan ku qaadayno waxaan ka mahad celinaynaa inaad waraysigan maartay galabta naga aqbashid oo aad naga ajibtid xasan هذه أدبان كاغا بحثوا لي وريسيغا قيمها بدا هاد كرفتي مارتي halkaan aan ku yeelanay nago dhulkeeni deegaankeeni joogna waxa uu sheegtay ani magacayga Liibaan baa leeyahay ayro muddo waxaan joogay Puntland sugnaa waxaan intaasba marxaladii ay soo martay waxaan ahaa nin waxaad ka joogay oday dhalinyaranimo labadaba Puntland saawada ognahay waxa la aasaasay 1998 waxa lagu aasaasay marxalad adag wadankooda dagaal sokay ka wada socdaan xaaladu adag tahay hadafkii laga lahaa Puntland waxa yahay maamul dadka reer Puntland oo 5 gobol iyo degmooyinkooda isku aasan iyo dad isku isira ay wada dhisteen oo dhameystiran oo kalsooni ka wada timid goboladoo dhan waa lagu aasaasay Puntland runaantii waa lagu najaxay aad baa loogu najaxay waxa kaloo feer socday horumarka Puntland oo dadka reer Puntland ay ku dhisanayaan dhulkooda iyo deegaankooda ka feer socday meesha la gaaray lama qiyaasi karo aad bay u sareysaa dadku waxaan oran karaa way dadaaleen shacabka infrastructure-ka isagana dadaal fiican baa laga sameeyay runaantii waxaan oran karnaa meeshii la rabay weli dadku ma aysan gaarin laakiin waxaan isleeyahay dadaal fiican way dadka reer Puntland iyo madaxdooda wax toosanayeen markaan u soo galo arrinta amniga oo ah waxyaalaha dadka bini'aadanka ugu horeeyaan oo ahmiyadda koowaad u leh waxa Puntland ilaa iyo Cabdullaahi Yuusuf maalinta ka dhameysay ay la kulmayeen dadka reer Puntland dagaallo uga imaanaya maadaama ay yihiin qayb ka mid ah Soomaaliya hal haddii dhul waa cuno oo qayb ka mid ah uusan cunin qaybta kale ma rafiyoobaan mayso waxaan oran karnaa Somaliland iyo Puntland meelaha hadda xoogaa weliba nabad fiican ka jidho iyaguna sida ay tahay inta badan bulshada Puntland dagaalo badan Cabdullaahi Yuusuf kuwa external iyo kuwa gudaha labadaba waa qabsadeen oo alqaacida iyo gudaha oo dagaal kaga furmay oo arrimo laftigooda dib badan laga maray laakiin aakhirkii la xaliyay hadda Muuse ku xigay hadda Muuse wuxuu la kulmay dagaal adag asaguna Cabdullaahi Soomaaliya loo doortay ka bacdina waayadii maxaakiimta soo weerareen dagaal adag baa halka ka dhacay asaguna waa la kulmay Faroole waa la kulmay buurihii iyo alqaacida gudaha dalka dhibaato ka waday Cabdiweli waad ogeyd mid dabada alqaacida iyo mid qabaa'il wax walba waa la kulmay xukuumadda hadda joogta waa ogsataa intay dib soo martay dagaalkii Laascaanood qayb weyn ka ahayd kan hadda halka ku furan gudaha dalka oo ay shabaabkii yaarkaxsaday gaalka iyo dhibaatooyinka la kulmay ay waqtigeeda xasbaysa xalay miisaaniyadda ugu badan Puntland ay ku baxdaa dagaalo external oo aad u tiro badan sababtana waxa keenaya mar hadday Soomaaliya fiyoobayn adiguna fiyoobaan maysi si kastoo la yeelo fiyoobaan maysi mar walba waxaad ku jiraa conflict yani wuxuu ku soo gaarayaan problema kamid ah dhibaato kamid ah ku soo gaaraysa sida u fiyaamaysa marka inaan Soomaaliya nabad ka dhigno ama iyadu nabad noqoto Ilaahay inta madax soo gol iyo dad soo gol Soomaaliya ka helo ay hesho ay nabad noqoto iyo inaanu nabadayna sii durkino oo aanu gaarsiino Soomaaliya oo dhan baanu ku badbaadi karnaa marka marxaladaha amniga ugu daran laakiin sida kale xaaladaheedu waxaan isleeyahay Puntland meel waxay joogtaa qofka
reer Puntland maanta ku qanci karo. tani markii la aasaasay dowladda Puntland oo hadda laga joogo muddo 25 sano ujeedooyinka loo aasaasay maxaa laga gaabiyay maxaa la gaaray hadda xagee la joogaa ujeedooyinka laga gaaray waxay ahayd dadkaasi inay maamul federaal inay dhistaan. ujeedadii koowaad taasay ahayd. waxay ahayd waxyaalaha kale oo amnigu ka mid yahay, infrastructure ka mid yahay, xawayaasha dhaqaalaha intaba in la hormariyo. ayagiina meel fiican bay marayaan. laakiin waxaan oran karaa arrin karooniga Puntland ka jira. dowladda Puntland intii madax soo marday hal nin oo u soo jeestay ma jiro. arrintaas waxay tahay qabaa'ilka islaynaya. qabaa'il islaynaya oo wax kasta ka daran oo aan dhammaanayn. waxaan taariikh ku maqalay intaan gumaystuhu imaan Soomaalidu waa islaynayeen oo waxay ku jireen dagaallo sokeeyay. gumaystuhu waa isku ururiyey, kabacdi dowlad baa timid. kabacdi dowladdii timid waa iyadii daakhiliyadii la gaaray, dalku madax buu yeeshay 21 sano oo Maxamed Siyaad Barre kabacdi kafti bay ka uqanta. 2010 markii dowladdii dalka ka talinaysa ay dhacday, iscayrsigii bilowday isdilkii iyo dulmigii weli waa socdaa. meel Soomaaliya ka mid oo ka fiyowna male. Puntlandna kama fiyowna. Soomaaliyana dee warkeeda badaa weli systems qabsaday ma jiro. marka arrintaa dowladdu way ka gaabisay in dadka qabaa'ilka ah oo ah nabadoonnada iyo dadka isimada ay ku dhex jiraan ay waxba ka keeni waayeen. 5 baa la dilayaa, waxaa leeyahay markaa la isku xushay 6 baa la dilay. dadku xoolaba lama bixi karo. xoolaha waxaa lala gaaraa reer 10 laga dilay, reer 10 mag baa lala gaari karaa. lama gaari karo. marka waxaan jeclaan lahaa in dowladda Puntland inay u soo jeesato argixisada haddii ay ka soo jeesato oo gudaha internaalka u soo jeesato. chronic disease kansarka jira waa in qabaa'ilku nabad ku wada noolaado. dhulkan Puntland waa inay nabad ku noolaadaan. weliba ay ku noolaadaan qofka hadduu qof dilo inuu og yahay inuu ciqaab ka damaynayso. laakiin mar haddii nin la yiri nabadoon baa lagu doortay oo aan ciidan lahayn oo aan lahayn facility oo aan mushaar lahayn, la yiri alaa dhex boodaya, wuxuu ka qaban karaa iska yar. marka waa in la helaa xal dowladeed oo odayaashana hawsha ka fayda, dalkana gacanta ku wada haysa, lagana saaro meesha idinku isxalliya. waxaan ognahay in habeen hore u dambeysay magaalada Busaalax dhib baa ka dhacay. dhib horaa kasii horreeyey. waxaa loo daayay dadkii nabadoonnadii simadii baa dowladdu way ogeyd waa loo daayey. maysa xallin sababtoo ah ninkiina lama helina waa la waayay. cid kaloo xallisana ma jiro. marka say u karsanayd oo iyadaa dilaacday niman dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo iska shaqaysanaya oo nolol ay tahay inay noolaadaan ay ku fiicnaan lahay. qof geeridu qofku inuu noolaado dadku ku anfacaya inta ilaahay u qoray in la iska dilo bay sababtay. haddaan marka waxaas dowladdu u soo jeesay oo la kala xakamayn, mid walba maalin walba mid baa dhimanaya. saas ku dhimanaya macnahaas. sidee loo gudbi karaa nidaamkan qabiliga ah oo dadka loogu xiri karaa nidaamkan dawliga ah oo dowladdu wax walba inay xaliso mushkiladaha ka dhacdaa qabiilada? nidaamka qabiliga ah oo ah reer walba ha isxalliyo. horta way dhib badan tahay oo hadda dowladdu dadku way dhib badan yihiin. dadka laftigooda waa dhib badan yihiin. laakiin ha dhib badnaadeen waxaa la rabaa in maalinta wax loo soo jeesto in meel lagu gudo. sideeda dadka madaxda waxaa loo doortaa, dowladnimada loo doortaa in dowladnimadu ay tahay haykalkii waddanka ugu sarreeyay waxna sixi lahaa. waxaa la rabaa marka inay dadka inta systemkan ka wareejiso dhaqanka ama wuxuun u soo reerto inay qof dilaya iyadoo la wareegto oo ay tiraahdo shareecada islaamkaanu u jidaynaa weliba xilliga hadda la joogo qisaasta. sababtoo ah waa la isku maadaya haddii la yidhaahdo diye hala kala cafisna warkiisa daa cafis isagu meesha
qof dhifaa samaynaya Mhm. dad qofna dhifaa ka soo rowda laakiin ama waa diyo ama waa dil marka dilka in import kala si